madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dab ka kacay magaalada Wajaale halkaas oo ay ku gubteen guryo iyo bakhaar ganacsi isla markaasina waxyeello xooggan soo gaadhay dad shacab xaafad baa gubatay dan yara waliba oo intii dan yarta ahayda 7 guryo ka badan wixii xoolo hoos yaallay waa gubteen oo waa shubbeelaan nasiib wanaag halka cid ku dhiman isla maanta tobankii guri gabri ku yaala ayuu doqobsaday hooyadan la ka tagtay carruurtii guriga kaga tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay kala ka baxay inta waa tacsiideynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdamiska Soomaaliland oo Hargeysa boorba ka gurmaday 3 habeenimo waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliiska oo si wacan soo abaabulay ilaa taliyahu waa barigii ka gaaray dadka gurmadkii ugu horeeyay ee ka baxay Hargeysa oo taliyahu Gabriel Fadal iyo barmadkii iyo dabdamiskii iyo kuwii boorba dhawaa iyo kuwii gabiray mar isbiilka ugu badan ku gaaran meeshii waxa gacan weysay dadka Wajaale degan isagoo caqabado shaqeynta saari magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka oo dadku iska xidhay darbi ka noqdeen mid baaldi sida mid gaariga jiida mid alaab ka gura sida la sheegay waxa yar dabku ku tirsay bakhaar ay ka buuxaan nafta iyo petrol oo gacmaha ka gureen afartii shantii habeen meelaha laga saaray shabeelada qoladana wax barayna in gurmadka iyo fajiraanta aan lahaano madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale baaq nabadeed u diray dad walaal ah oo dir ugu dhaxayso deegaano ku yaala koonfurta gobolka Sool waxaana uu ku baaqay in dagaalkaasi la joojiyo waxaan halkan baaq u dirnaa dhamaanteen xukuumadda oo dhan iyo gudoomiyaha golaha wakiiladu walaalaha isku dilaaya koonfurta bari ee Sool magaalada Qurayle dagaalkaas dagaal loo baahayay maaha dad badan oo ku dhintay sanado badan ugu socday 3 dal oo saameeya inaga Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia oo saameeya waa halka 3 xad isku yimaadaan waxaanu baaq u diraa dadka walaalaha halkaas ku dilaaya in aqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba kordhin muddo ka badan sala ay sheegay 10 sano dagaalkaas socda oo kolba intuu dabaha dal soo horeeya kol walba ugu yaraan 10 20 intaas qof baa ku dhintay intaas ku dhaawacantay sabab ay muslimiinta dagaalka riiqda dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaan garan maayo wixii muslina iyo Soomaali ah ee wax garan waxaan leeyahay arinta laga gurmado oo dadka istilaayo waa dad Soomaaliyeed waa Soomaaliland waa Soomaaliya waa kala shaada Ethiopia waa isku family uun xadka ku badan talaaba iyo muslimiinta in loo gurmado arinta xal laga galo waara oo lagu dabiyo Maxamed Kuraase on Cable TV Hargeysa.